طبعا سوى سومالي ميديا عاونا waxa barnaamijkeedu ku diyaaray anigoo ah Cabdi Maalik Maxamed Askar haddaba in dhaweed ba Soomaalida deegaan gobolka Minnesota waxa ay dhibaato weyn ay ka haysatay dhinaca baabuurta haday noqon lahayd iibsigeeda ama haday noqon lahayd inay sameeyaan marka uu baabuurku jabo shirkad weyn oo la magac baxday Midwest ayaa iyagu waxay diyaar u yihiin inay Soomaalida deegaan gobolka Minnesota ka caawiyaan dhinaca baabuurta marka ay markaasi iibsadaan in ay markaasi la taliyaan baabuurkaasi intuusan iibsan ama haday noqon lahayd marka uu ka jawaabay inay u keenaan oo markaasi ay u sameeyaan هذا بني كم ضحك كه محمود ومرة عن كوبا وقلنا حرون تاسيم الويست سو كل حجرة باور تفرح أنا كل حجرة أيان وحنا ويدين دور سؤال دوس ده ودعتنا واسطة وحنا سوينا وحياة بدن أو أنجر شركة لبو سوينا حنا سوينا تايرز كانوا سوينا يجو سبيه يجو يوسف alignment بانو سوينا balance بانو سوينا computer diagnosis نوانو سوينا usually free ما نتذكر وعنا computer كنا نقارئ كسرنا marka adu waxyaabo noocaas aan ka duwanahay waxa iyaguna waa warranty iyo everything they have it marka wuxuu waa biro hadii inta meel ka soo iibisay xumaato customerska still warranty-gi ma ugu cover gareynaa system kana markiiba waanu gelinaa si aanan hadhow u raadin xagee laga soo iibiyo wartan xagee ka timi iyo waxyaabo saas garaashkiina maadaama aad tiri garaash Soomaali weeye maxaa loogu bixiyay Midwest Soomaali loogu bixiyay wallahi indiyo howdeen dhulkeen joogno waa dhul gaal marka de wastigana waynu ku naalaa marka sidaa darteed baanu Midwest ugu bixinaanu ugu talagalay in maaragtay adduun dadka oo dhan uu ka dhaxeeyo gaalo iyo muslim marka shaqada aad qabataan waa shaqo ka wada dhaxaysa dadka oo dhan Soomaali kaliya ma waa gartay dadka Soomaalida baabuurteedii keena ما سيسان واحد خلاص أنت إذا باور كبلابين إذا سمينتيس أما واحد دقنين هذي على رد بهذا وكوي مادان وأما أفكار وشلت أمور غلط سيسان يأكل كاريجا مركز customers كنوا كانان حدي وحيابا computer problem وشلو computer كانوا مركب صارنا كدبنا وحنا صمينا وحيابا وبهاي customers كوا explain كرينا waxyaaba important tiga reeda way u baahan yahay inuu ka qabto waanu ka qabanaa wixii kale oo aan hadii aan inta jirno hanna waqtiga iyo waqtigaas aad u baahantahay inaad bedeshid marka mar walba gaariga waanu jeegaraynaa sida ugu possible san ee customers ku qancin karaan ugu jeegaraynaa waxa ciladaha ugu badan Soomaalidu ay keenaan wallahi waxay noo keenaan ciladaha ugu badan ee horta problem ba Soomaalida wuxuu ka haystaa xagga tires-ka alignment-iga career gaarigo dhan shay gareynaya markuu highway-ga fuulo waxyaabo la xiriira computerized oo diagnostic system marka alignment-iga waxaan arki jirnay in xagga hore la saaro laakiin kan waxaan moodaa afarta lugood waa la saaraya afarta lugood waa lagu xidhayaa si uu miisaankii gaariga uu isu leekaado marka each tire wuxuu leeyahay xabad sensor oo lagu xidho si uu u wada akhriyo gaarigo dhan meesha ay joogo miisaankiisu marka wuxuu ka caawiyaa ordu ka caawinaya soo ka caawinaya wadada ku toosiyo inuu gariirka steering-ka oo gariira inuu dhabada ka baxo inta ay rado dhinac ka dhamaadaan inuu gaarigo dhan straight ka dhigo uu ka caawimaya laakiin de gaarigu ma ordi karo hadii uu gaarigo dhan gariirayo marka qofku sidee uu ku ogaadaa inuu idin keeno ciladu soo arkay daraadeed uu ku keenaa biseedi ku baqlo taleeyada saarta badanaa dadku waxay noogu keenaan gaarigu ama steering-ka off noqda ama gaariga qofkii ku gariira ama taayiradiisii baa dhinac ka dhamaado shape sameeya marka the only thing aanu markaan anagu kula talinayno waa marka aanu taayir ka bedelo qofka gaariga oo discount baanu siinaa haddaan afar taayir ka bedelo wanaagsan alignment-iga marka si aan taayiradii aanay quick uga dhamaan qofkii waxaanu kula talinaynaa inuu alignment iska saaro haddii uu awood gareeyo waa gartay qiimaha markaa teeb loo qaraayo sababta qiimaha Soomaalida raali geliya bise waa qiimaha iyagu marka aan qofka taayirada u sameeyno 4 tires markaan u gelino gaariga waa $39.99 haddii uu qofku alignment uu rabona waxa weeyaan waa $50 weeye marka idinku taayirada baad gadaa taayirada iyagu cusub iyo used waanu gadnaa labadaba
aad u baasantahay maxamed waxa kale oo markaasi aanu weydiinay siyaabaha Soomaalida dhibaatada u keena marka ay baabuurka la soo daristo haday noqon lahayd gurigiisa hortiisa inuu kaga jabo ama freeway isagoo maraya waa meesha baabuurta ay dhex ordaan ee laamiyada waaweyn siyaabo wuxuu yiri waxaan markaasi aan la kaashanaa buu yiri townis ay Soomaalidu leedahay oo markaasi soo toogareeyay ka bacdina hadhow qofkii Soomaalida ahayd lacagta markaasi si tartiib ay uga qaataan haddaba maxamuud iyo ereyadiisii gabagabadii barnaamijkii markii la soo gaaray ayaa waxaan weydiinay sida tan ugu badan Soomaalida ay baabuurta idin keenaan samarka winterka waxay noo keenaan waqtiga winterku ama uu soo galayo winterku ama waqtiyada snowyada badanaa Soomaalidu uma sii diyaar garowdo qaboobaha maralaale marka gaariga uu kici waayo markaasay iyaga wixii oo loo noo keenaan laakiin waxa wanaagsan in intaan gaarigaagu waxyaabaha uu u baahan yahay maintenance-ka inaad ka samaysid intaanu fadhiisan laga yaabo wax yar oo cooling problem ama inaad cooling transmission ka faash garaysid tune-up ku samaysid fuel filter ka bedeshid si wixii aan gaarigii u maxay u kici waayn bartiska iyaga soo gatay Soomaalidu sidii kale u soo gadatay bartiska annaga badanaa u soo gadna waayo warranty-na waanu gelinaynaa haddii wixii wax ka soo noqdaana we still take care partskii iyo shaqadiiba